xeerkan wuxuu ka dhigan yahay inkastoo hore u jiray laakiin de wax ka bedelkiisu waxaa jira ilaa 11 qodob oo ay cabasho ka qabeen bahda warbaahinta oo runtii si toosan u taabanaya xorriyadahooda iyo habka ay u shaqeynayaan sida ay shatiga qaadanayaan sida lagu ciqaabayo haddii ay khalad galaan iyo sida haddii khalad laga galo intaba lagu xisaabtamayo xeerkan runtii maanta wuxuu ka dhigan yahay xeer kala xadeynayo xuduudaha xorriyadda qofka suxufiga iyo sidoo kale dadka isticmaalaya awoodaha dheeriga ah ka baxsan sharciga masalan maanta wixii ka horreysay waxaa jiray suxufiyiin badan oo Soomaaliyeed oo maxkamada la geeyay oo lagu xukumay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ama lagu soo eedeeyay xeerkan maadaama xeer gaar ah wuxuu meesha ka saaraya in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed kiisaska la xiriira shaqada saxaafadda sida tooska u taabanayo inaan loo cuskan xeerkan sidoo kale wuxuu runtii maanta laga bilaabo dhaqan gelinaya oo suuro gelinaya in la sameeyo warbaahinta bulshadu leedahay ama public broadcast loo yaqaano iyo guddiga saxaafadda qaranka iyo guddiga maamuli lahaa warbaahintaas oo dhammaantood ka shaqeynaya in awoodda iyo warbaahinta hadda dawladdu sida gaarka u isticmaasho loo dhaweeyo shacabka ayna ka turjumaan baahiyaha shacabka. agaasime sidii aad maqlaysayba xubno ka tirsan ururada saxaafadda oo hadlayay iyo dadka sharciga akhriyaba waxay leeyihiin weli waxaa jira qodobo ka hadlaya in caburini jirto oo faafareeb ay mararka qaarkood dawladda samayn karto maxaad uga jawaabi lahayd aragtiyahaas? runtii 16 qodob ay ka cawdeen 11 kamid ah waalan bedelnayba oo sidii rabeen laga dhigay taasina waxay u muujinaysaa runtii hiilka aan bahda saxaafadda u galnay iyo garab istaag aan garab taaganahay in xorriyadda saxaafadda dastuuriga ay sarreyso waxyaabaha yar ee ka dhimanna waddanku doorasho aadaya marxalad doorasho loo diyaar garoobayo xukuumadda hadda joogta ee doorasho diyaar garoobeeda xisaabta mucaaradka iyo qof kasta Soomaali oo doonaya inuu xildhibaan noqdo ama inuu madaxweyne noqdana uu tartan galayo muddadaasna de sharci la'aan laguma shaqeyn karo saxaafadda lafteeda xakameyn badan ay u baahan tahay shuruuc xilliga doorashooyinka in loo sameeyo u baahan tahay habraaciyo hufan oo runtii xorriyadoodana ilaalinayo xirfadoodana ilaalinayo u baahan tahay waxaas oo dhan wuxuu madaxweynuhu garowsaday inay muhiim tahay in xilligan sharciga la saxiixo si marxaladan kala guurka aysan u lumin xorriyad badan ay saxaafadda leedahay loona ilaaliyo waxaa kaloo meesha ka saaraya runtii magaalada Muqdisho hadda ay dowladda federaalka ku shaqeyso waxaan aaminsanahay inay xorriyad xarka goosatay oo xadkeeda dhaaftay ay ka jirto waxaan kaloo aaminsanahay in meelaha Muqdisho ka baxsan ee dowlad goboleedyada inay tacdiye ka jiraan oo xitaa meelaha qaar wariyaal laga masaafuriyay yacni xorriyadaas meelaha goboladana looga xadgudbayo halkan goosadka ka ah waa in la helaa qaanuun xadida qaanuun caddeeya laynka u dhexeeya xorriyadaada iyo laynka u dhexeeya marka aad ka gudbayso xorriyad qof kale aad ku xadgudbayso. dabcan marka agaasimo waad rumaysan tahay in weli ay ku jiraan qodobo dhibaato ku ah xorriyadda saxaafadda? hadda fiiri shuruuc badan oo waddankan uu leeyahayba muddo dheer ay soo mareen sharci walbana dee maalin ma dhammaystirmo waddan waxaan nahay runtii dagaal ka soo kabanaya 21 sano oo xukun military ah kusoo jiray 9 sano xukunka dimuqraadiga uu haysteen culeysyo badan ay haysteen marka dee wax walba maalin laguma dhammaystiri karo laakiin waxaad garan kartaa xaddiga uu la egyahay yacni tadxiyada samaynay iyo dadaalkaan u samaynay in 11 qodob oo cabasho ka qabeen in runtii la turxaan bixiyo la saxay sidii bahda saxaafadda ay ku taamaysana laga dhigay marka inta dhimanna insha Allah waa ku dadaalaynaa laakiin annaga hadda wax noo muuqdo ma jiraan laakiin de qofka xirfadlaha ah ee sharcigan uu taabanayo dan buu ka leeyahay danta uu ka leeyahayna waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaar in laga sii dabciyo inuu rabi lahaa waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa ka mid a yacni idaacadaha furan shaqaalaha u shaqeeya xirfadooda lama yaqaano kartidooda intay laegta lama yaqaano qandaraaska ay ku shaqeeyaan iyo sida haddii lagu xadgudbo loola macaamila lama yaqaano marka keliya yaan la fiirin sharci baa naloo sameeya ha la fiiri ayaga laftooda shaqaalaha u shaqeeya xuquuqda uu leeyahay taa inay dowladdu kula xisaabtami karto oo dhihi karta wariyaha kuu shaqeeya ama tifsiraha kuu shaqeeya waa in mushaar intaa la eg helaa si uu uga kaaftoomo ama laaluush ama gacan bidixayn kale ama si kale in loogu tasarrufo awoodiisa loo isticmaalo in laga hortago. taas aad ka hadlaysa aad leedahay suxufiyiin badan oo idaacadaha ka shaqeeya oo aan la garanayn baa jirta haddaad sharciga eegto wuxuu leeyahay qofka raba inuu suxufi noqdo waa in wasaaradda warfaafintu ay siisaa laysinka uu ku shaqeynayo dabcanna sida caadiga waa in ururada saxaafaddu ay bixiyaan marka soo halkaa kama muuqato dowladdu ciday doonaysa inay wariye ka dhigi karto ciday doonaysana ay u diidi karto. ibraahim horta dalkan waa dal burbursan waxaad ma ogtahay qof walba oo mikrofon qaatay inuu wariye iska noqday waxaad ogtahay dad aan xitaa fahansanayn xuquuqda iyo xadgudubka qofka kale uu ku sameynaya inay ka shaqeeyaan in marxaladan lagu jiro la hubiyo qofka aqoonsigiisa iyo saxaafadiisa iyo khibradiisa in la fiiriyo waayo yacni dhakhtarka aqoon darrada ee hayso wuxuu dili karaa qofkii ugu taga xaruntiisa caafimaad dili karaa laakiin wariyaha aqoon darrada ee hayso wuxuu wasakhayn karaa dhagaha malaayiin qof oo Soomaaliyeed wuxuu macluumaad khaldan quudin karaa dad fara badan oo Soomaaliyeed wuxuu jahwareer ku ridi karaa malaayiin qof oo Soomaaliyeed marka waxaan aaminsannahay sida dhakhtarkaba looga baahan yahay ruqsad iyo aqoon iyo khibrad uu dadka ku daaweeyo ayagoo aan ognahay cidii xaruntiisa ugu tagto kaliya inuu dhibaataynayo haddana wariyahana waxaa looga baahan yahay inuusan malaayiinta Soomaaliyeed dhagahooda runtii wax beena ku shubin oo marnabaaban ku shubin oo caqliyadooda isku xadgudbin oo waxa uu sheegayo uu iska hubiyo jacakum faasiqun binabayn fatabayanu quraanka yiri waxaan inay iska xaqiijiyaan oo wax la hubiyay oo aan raad raac leh inuu bulshada u tabiyo miyaanay mudnaan dowladdu u lahayn inay taa ka fikirto.